بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى المحلي ساكا ألكن سوكين كان ساكا وحي يمدي حفيزك أبارها حيبي إيسا علمي وكوكيل الريحولن أني سيدان لبي هي $10,000 يا سلطان عبد الرحمن جامع دول أو يسمونه مربر أو استراليا أو كوكيل سيدات كل هي تضاوق قليل سلطان سيدان شيخ عبد الله شاعر الجوهر أو أنا سيدان $10 شيخ أو يسمونه كوكيله يا شيخ حسن دهاي أو يسمونه سيدان laba kun iyo 322 oo kala ah Sweden, Switzerland iyo Malta oo la dhalo marka waxaan dadka hadda ayay wareejinayaan lacagtii nin walba waxa ugu horeeya wareejinaya haybe deese. bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. aniga oo haybe ciise cilmi oo ka yimiday wadanka Holland maanta la jooga xafiiskii abaaraha gudida abaaraha ee magaalada Boorame waxaan sidaa oo lacag ay dad soo ururiyeen walaalo oo muxsiniina lacagtaas oo dhan $12,000 lacagta waxa laga soo ururiyay anagu horta haddaan nahay dadka u dhashay gobolada Awdal iyo Salad iyo Gabiley lacagta waxa la asbaabteeda oo anaga bilownay markaan aragnay dhibaatada ka jirta meesha laakiin waxa isku soo dardaray oo dad muxsiniin ah ka soo ururin oo walaalo ah oo Soomaaliyeed oo dhan magaalooyinka aan ka xusi doono insha Allah halkan magaalooyinkaas oo ay ka mid tahay magaalada la yiraahdo Tilburg, Bareeda, Delft, Rotterdam, Den Haag. intaas oo magaalo iyo lacagtaasi ka kala timiday waxaanan keenay oo aan ka soo ururinay walaalo islaam oo muslimiina waxaa intaa raacsan ururka halkaa ka muuqda ee Safe and Life waxaa maxay ahayd iyagana laga soo gaaray oo lacagta ku jira $2,000 ayay soo dhiibeen. ururkaasi wuxuu ka diiwaangashan yahay magaalada wadanka Netherlands wararka calaamadooda halkaa ku yaala. ururkaasi wuxuu soo maray oo arrinkan weydiiyay ururka ka horeeya ee istaawaydaho oo ka diiwaangashan wadanka Holland oo inama soo gobolka u dhashay ay leeyihiin. ururkii wuxuu u baahday in urur wadanka jira iyo ku xidhay oo yiri urur wadanka ka jira waa inaan helo idinka la joogin laakiin dad halkii joogayna ururkaas markaa warqad soo diray kasta ugu sareeya adeeko yaa soo diray warqad oo yiri anaga meesha joogna marka iyaga yani saddexda urur ba iska kaashtay lacagta $2,000 ina sida u sheegana waa la igu soo aqbalay insha Allah inay dhantahay waan u malaynayaa kaas intaas ka baxaya. waxaan halkan aan ka sheegayaa walaalaha gabdhaha u dhashay gobolada Awdal iyo Salad iyo Gabiley oo magacooda la soo gaabiyo Kabaal Nagi. gabdhahaasi waa gabdho muxsiniin oo aad isku xilqaamay sababtoo waxaan gabdhaha u xusayaan rag u xusilaa iyo urur bay samaysteen. ururkaas oo horena gobolka wuxuu soo gaareen imikana qayb libax ka qaatay lacagta $12,000 imikana ku hawlan inay wax kale keenaan oo aad isku mashquuliyay walaalahaas aad ugu mashquulsan inay dadkooda wax soo taraan marka in la sheego waan ku qasbanahay. intaas waa dadkii iyo cidii ay lacagtani ka timid lacagtina waa tan weydinaya haddana waxaynu kala wareegaynaa insha Allah taala lacagta uu sido Suudaan dawal yana dana la wareegaynaa. ilaahay baa mahadlay maanta waxaan sidaa lacag dan $8,730 oo laga soo diray Australia oo gabdho muxsiniin ay soo direen oo waliba siiba magaalada la yiraahdo Melbourne laga soo diray ayaa halkan maanta gudida abaaraha aan ku wareejinayaa. waxaan leeyahay gabdhahaasi oo ay u codsaday magaalada magaceega mooyaane iyo dalka shakhsi aan u sheegin hablaha muxsiniinta oo runtii
say sheegeen ama ciddii kala soo xidhiidhay ay yihiin goboladan abaaruhu maanta ay hayaan ee hadda halkan laga sheegaya awdal iyo salil iyo garanaysaay gabileba waxaan leenahay ilaahay maalin fiican runtii soo direen loo baahan yahay soo direen bir rabadaan ilaahay ugu soo hagaajay intii ay la baxday in muxsiniinta hablihii adeegayay ee hablaha kurinayay iyo intii ka ajiibtay waxaan leenahay jazaa allah khayr ilaahay naga jazaa siiyo isaadka xasanaadkan allah inagu daro waxa weeye halkan hadda waxaan ku wareejinaya guddiga gabagabadii lacagta aan soo sheegay oo $8,730 oo ay soo direen hablaha Australia ah oo weliba magaalada Melbourne la yidhaahdo guddigay igala wareega lacagta waxaa leeyahay haddana imika lacagta wareejinaya sheekheennii sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar yaa iminkana inoo wareejinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال لي يركض السنة اللي يرتاع قبل أول يسأل الجوجا هولم يا وحي الأهلين وحن صادر ماي تبرع عن صادر ماي تبرع وحن صادر ماي وحي على في سودية $2,000 وحن نطلق على إفطارك إيو عبارها إن أذيب سبي أذكرته أذكرها أي بصوت ويعني شيء إفطارك وشرحي وهربعون وشرحي فكان عندي سيدا الله أذكرته وكان قيم مكا واحد قيم $2,000 ما دام على صوتين $1 إلى إفطارك أنكو قوانين مساجد جامعة ومسجد كبوتة وشان يتطوعات نقف أو نقافرينه أنا كوريجي حسن الشيخ عبد الرحمن أنا كوريجي مسؤول نوجا ياي راشقات يارين تيسا كم بنا كاو تلاقي كنا وحنا نقول تلاقي حفيزك عبارة إن كانوا نقول عبارة عن بيو كاشر محمد يجوا قدوم كم كي كان تلاقي قيد عبارة رمضان حيا كبر إنه مدة كذا يسوي ديستين إن هاي مدة كذا ساعات جلودك بقربي أو سيريو لما في مغفرنا والمبرينا ميزان حسن فينا وقرنا والمبرينا دمان تنبا وحنا هاي يبون عفي سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن دهي يا لعبتي لبسوا قاعدين وريتنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وش حسن دهي أحمد وحمد وريتنا لعكت من ضيق أن يرى مقالة سورك لنعضو سويسرلاند ومرهرنا وحمارة العبران صوت جري ما عندنا يصوت لنا $2,000 وقاليه دوان كتكتي وطنك ومعرض ذاتك دوان تجي وطن كاس تمرتو دي سفي عم بيسود دلين حتى مرة هيدي حتى تايوا وح ما تاسوا $2,000 وسويسرلاند دليل تكسر درتي وحكر أوريجيننا ما نتعري العقيد نكت مدي سنة لندن ساوث هول أو صدري يوسف حسن آيات الله كل عدي نجر تيسا قرني يلا نعضو معطي النوع صدح بقول يكوبي $2,000 ذاتك واحد مد بعيننا إني ما نتعري إلهي كعبال مريو صدقات إلى الصبحان يدو لي من مرة وقتيد صدقات دقوق أجل بضمير التعي هذه أدبان مد بعيننا مرة ثانية عجلة روي سقطان لنا هاي وولي ومرة الدياضس والذي كفر ديانا تصور طان وبالله التوفيق أدنى العقد بنقول الجنية يدعو الغدي كحوت كرعة لندن هي سويسرلاند تاسوا سوريك وسويسرلاند تنوع حوالي صدح بقول إياه كوبي لبعتن أو ساوث هول كاتم داي لندن أما إنجليز lacagahaas waan doonay haddaan nahay guddida abaaraha dadkii soo dirayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro inuu meeshii ilaahay ay ka soo saareen ilaahay khayr ugu bedelo tug khayr badan ugu bedelo inuu ubadkooga iyo maalkooga iyo caafimaadkooga intaba ilaahay u barakeeyaan u baryaynaa ciddii inay muraad kale lena in muraadkeega ilaahay usii fududeeyo iyaana loo baryaynaa kolley inay waxwey dadku weli cid inaga qabata oo hawshooda inaga xil qaata maynu arag dadkii sidii ubay noo sugayaan imika haddii guddidayada abaaraha haddaan eegno lacagaha ayaamahana soo galay waa lacaga oo xogaaya baahida meesha taalaana waa baahi aada u badan oo haddaan imika nidhaa raashanan u raro oo dhulkii mar labaad hala gaadhsiiyo
intana hayno waxaa loo baahan yahay saddex laabkeedoo lacag in la helo kolkaa walaalaha waxaan ka codsanaynaa si aan balmar labaad raashin ugu celino in qof walba wuxuu karayo bishii ramadaanna waa lagu jiraayay uu sadaqad loo baxo walaalihii ku taakuleeyo walaalihii ku taakuleeyo wax weeye dadka gudaha jooga ee magaalooyinka gudaha joogana waxaan leenahay waldeena inaguna walaalihiin ku taakuleeya wixii aad helaysaan ku bakhaar haysta iyo kuwa meel kala haystaba intii hore u bixisay maayo intii aan bixinayn walaalihiin inaguna waxu tara shacab bilaahi alla kariim oo ducaynayso بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم ربنا اتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا أرحم الراحمين اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انك بالجلال والبلاد من الجهل والجوع والضك ما لا نشكو الا اليك اللهم ارسل علينا من بركات السماء وامطر لنا من بركات الارض من بركاتنا يا رب العالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه